بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إن شاء الله تعالى كلمتنا maanta waxay ku saabsan tahay ixtiraam dadka ka waaweyn sidoo kale u naxariiso dadka ka yaryar. Nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam: laysa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Nagama mid ahan qofkii aan u naxariisanin midkeena yar oo aan ixtiraamin midkeena weyn. runtii ixtiraamka dadka waaweyn la ixtiraamo waa arin muhiim ah. waxaa jiraan erayo badan oo aan adeegsano oo laga wanaagsan yahay oo ay kamid tahay sida dadka waaweyn oo kale in loo adeegsado, rag oo kale hadii aan ka soo qaadno, duqa oo kale, odayga oo kale. waxaa wanaagsan erayadaas bedelkooda inaan u adeegsano adeer, awoowe iyo erayo kale oo lamid ah oo wanaagsan oo ixtiraam ku dheehan. dhanka dumarka intii aad dhihi lahayd duqda, habarta, waxaa wanaagsan inaad dhahdid maamo, eedo, habar yar iyo erayo kale wanaagsan oo markaasi lamid ah. haddii markaasi qofka uu maaragtay qof kula eg uu yahay, waa dhib ma lahan magaciisa oo kale haddaa u wacdid. sidoo kale waxaa sameyn kartaa inaad dhahdid walaalkey oo kale, hadday dumar tahay walaashey oo kale. dadka markaasi kaa yaryar ayagana waxaa wanaagsan in aadan dhihin yarow ama wariyaa oo kale, bedelkeedana aad dhahdid markaas erayo naxariis ku tusinayo oo maaragtay aad dhihaysid adeer oo kale, adiga inaad adeer u tahay aad kasoo qaadaysid, ama abti oo kale aad dareensiinaysid inaad micnaha aad ka weyn tahay. kelimadeenina intaas ay ku eg tahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.